salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey geyiga Soomaaliya qodobada degdega ah oo aan idiin hayo waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kuwa Samaroon oo hubkii ku wareejiyay beesha Ciise waji kale oo ay yeelatay xiisadii u dhaxaysay Samaroonka iyo Ciisaha waxaan ku faahfaahinayaa ciidankan la sheegay inay hubka u dhiibeen beesha Ciise ee Samaroonka bilow ilaa dhammaad sheekadan siday ku timid sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa ugaaska guud ee beesha Ciise oo degdeg ugu yeeray salaadiinta dhaqanka maxaa kulanka looga hadlaya faahfaahinta ayaan ku siinayaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa laba ka mid ah garaadada SCC Khaatumo oo hadda kulan la leh taliyaasha ciidanka militariga maamulka waqooyi bari ma go'aano dagaal ayaa lagu dhawaaqayaa maxaa xilligan kulanka ku soo aadiyay iyana faahfaahinta ayaan ku siinayaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordhayaan saaxiib yaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kugu horeysayna ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay soo dhaw daawade war weyn oo saameyntiisa leh ayaa hadda waxa uu ka imaanayaa xuduuda dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Awdal cutubyo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka Samaroon ayaa hubkii iyo gaadiidkii ay wateen waxay ku wareejiyeen ciidanka beesha Ciise ee ku sugan tuulada la yiraahdo Bolol wararka la helaya waxay tilmaamayaan in labadii toddobaad ee la soo dhaafay wada hadal uu u socday guuto ka mid ah ciidanka beesha Samaroon iyo sidoo kale guuto ka mid ah ciidanka beesha Ciise gaadiid dagaal oo gaaraya ku dhawaad 5 oo ay saaran yihiin askar hubeysan iyo dhashiikayaal askariga u yarna uu wato qoriga la yiraahdo AK47 ayaa la sheegay in ay si toos iskugu dhiibeen ciidanka beesha Ciise sida ay xogtu tilmaamayso warar iyo macluumaadyo kala duwan ayaa hadaba soo baxaya bishii la soo dhaafay 14keedii sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2025 waxaa la sheegay inuu wada hadal telefoon dhex maray mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Ciise iyo laba ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Samaroon wada hadalka telefoon waxaa la sheegay inuu ku saabsanaa in jufo ka mid ah jufooyinka hoose ee beesha Samaroon ay wada hadal toos la gasho beesha Ciise oo ay ku soo wareejiyaan hub iyo ciidan wixii ay haystaan jufada beesha Samaroon ee isku dhiibtay dhinaca beesha Ciise ayaa la sheegay inay markaasi hubka iyo sidoo kale tasiilaadkii kale oo ay lahaayeen ay u gacan galiyeen calaashan waxaan ogaaday baaris aan sameeyay jufadan hadda isku dhiibtay beesha Ciise inay ahayd jufo si gaar ah shakhsiyan wax uga tabanaysa suldaanka guud ee beesha Samaroon oo lagu eedeynayo inuu gacan bidixeeyay dhaqaale loogu talagalay beesha oo laga helay dadka qurba joogta ah ee beesha Samaroon khilaafka halkaas ayuu ka dhashay waxaana la sheegay markii dambe inay xaaladdu gaartay meel aad u halis ah oo aan waxba laga qaban karin xubno sarsare oo aan la hadlay qaarkood waxay ii sheegeen in ay la yaab iyo ama ka ku noqotay sida beesha Ciise ay xilligan u dhex gashay jufooyinka hoose ee beesha Samaroon taas oo mid ay isku soo dhiibayaan ayaa la leeyahay odayaashii iyo sidoo kale waxgaradkii beesha Samaroon gaadiidkan waxaa la sheegay inay hadda ku sugan yihiin tuulada Bolol wayna ka sii tagi doonaan oo waxay tagi doonaan saldhigga ugu weyn ciidanka beesha Ciise ee ku yaala magaalada la yiraahdo Habaas kadibna Ceelgaal ayay ka sii tagi doonaan ujeedada ugu weyni waxa lagu sheegay inay tahay in fariin cad oo toos loo diro suldaanka guud ee beesha Samaroon oo isaga lagu eedeynayo in uu u cadaalad fali waayay dhaqankii iyo waxgaradkii beesha Samaroon oo xilligan tabashan weyn qaba xiisadu waxay yeelatay waji kale hadiiba markan guriyaha la iskala baxayo oo ciidamada kale ay u goosanayaan dabcan Samaroonkuna waxay qaadi doonaan wax awal xadidayay oo ah in jufooyinka hoose ee beesha Ciise la tashkiiliyo Ciise waxa la aaminsan yahay inay dhaqaalo juhdi xoog xeelad iyo ciidanba ku bixinayaan jufooyinka hoose ee beesha Samaroon waliba kuwa ay sida aadka isku hayaan suldaanka guud ee beesha Samaroon ayaa la leeyahay waa ay ka dhexsiibatay waxaan la xiriiray mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gacan yarayaasha u ah suldaanka guud ee beesha Samaroon si aan wax uga weydiiyo dhacdooyinka iyo wararka halkaas laga soo tabinayo wuxuuna ii sheegay in ay jiraan odayaal dhaqameed Samaroon ka tirsan laakiin daga xuduuda dowlad deegaanka iyo sidoo kale Somaliland halkaas oo la sheegay ayaa la leeyahay in toddobaadii la soo dhaafay si weyn ay u jireen
dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinac walba leh oo ciidan hadday noqoto siyaasad, hadday noqoto dhaqaale, halkaasi si weyn looga dareemaya. sidaasi lamid a warar kale oo soo baxaya waxay leeyihiin beesha ciise waxay isticmaalaysaa istiraatiijiyad dhaqaale. yacni waxa ugu horeeya oo dadka lagu soo jiito waa dhaqaale, waxa labaadna waa ballanqaad, waxa saddexaadna waa in ay degi doonaan deegaano fina abadan ah oo weligood ay deganaan doonaan. waxa ugu weyn oo hadda ay ciise u adeegsanayaan waa dhaqaale xad dhaaf ah oo laga soo qaaday Ismaaciil Cumar Geelle, oo la leeyahay dhaqaalahaasi waxaa loo adeegsan doonaa furfurista beelahoosadyada beesha Samaroon ee ku sugan gobolka Awdal. xiisadu hadday yeelato weji kale dabcan waxaa la arki doonaa isku dhacyo kale oo ciidamo ah iyo inay xaaladu khatarteeda yeelato oo la arki karo inay sheekadu weji kale yeelatay, taas oo dabcan aan u wanaagsaneyn dhinacyada isku haya xuduudda dowlad deegaanka ilaa gobolka Awdal. waxay ku soo kordhaa saaxiibayaal waynu eegi doonaa, bal markana qodobadeena kale. ugaaska guud ee beesha ciise ayaa degdeg waxa uu ugu yeeray salaadiinta dhaqanka ee gacanta ku haya xeerka buugga ciise. ugaas Mustafa waxaa la soo warinayaa in uu u yeeray ku dhowaad 22 xubnood oo guddi ah, kuwaas oo bilihii la soo dhaafay ka shaqeynayay xeerka buugga ciise iyo in si degdeg xeerkaasi uu dhaqan galo. odayaasha hadda loo yeeray ayaa la soo warinayaa inay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Boorama, ay si dhumaaleysi ah qaar u joogaan, qaarna ay joogaan magaalada Saylac. intooda ugu badanna Saylac ay joogaan, qaar xataa waxay joogaan magaalada Diridhabe oo dowlad deegaanka ka tirsan. xogahan helay ayaa waxay tilmaamayaan in odayaasha intooda badan la dul dhigi doono amar ah in ay si degdeg u qabanqaabiyaan shirweyne ballaaran oo looga tashanayo aayaha iyo mustaqbalka beelaha halkaasi dega. waxaana wararka iyo macluumaadka aan helayno ay tilmaamayaan in odayaasha dhaqanka ee loo yeeray ay yihiin raggii ka dambeeyay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Boorama. 22kan oday dhaqameed waxaa la filan karaa in loo dhiibo galka la xiriira xeerka buugga ciise in si degdeg ah loo soo bandhigo oo aanan cidna lagala tashan. sheekaduna sidii ay hore u socotay ay ka sii laba jibaaranto oo calaashaan sheekadii hore u socotay la sii laba jibaaro iyadoo aan cidna laga amar qaadanin. ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa markan go'aankaas ayuu qaatay, waxayna dadka arrimaha la socda leeyihiin haddii aysan wax badan isbedelin dabcan waxaa la arki doonaa isku dhacyo dhanka ciidamada ah oo dhex mari doona labada dhinac iyo in sheekadu ay faraha ka baxdo. khubaro aan la hadalnay qaarkood waxay sheegeen in toddobaadkii la soo dhaafay sidaas oo kale uu jiray walaac la xiriira in ismada dhaqanka beesha ciisuhu ay ka dhaga adeegaan amrada ugaaska guud ee beesha ciise. laakiin xogtan helena waxay tilmaamaysaa in Ismaaciil Cumar Geelle uu ugu hanjabay qof walba oo ka hor yimaada amarka ugaaska guud ee beesha ciise inay tallaabo ka qaadi karaan. dabcan waana hanjabaad sarreysa oo ay dad badan aaminsan yihiin inaan lagu dhiiran karin. qodobkan ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa laba ka mid ah garaadada maamulka Waqooyi Bari ayaa salaadii Jimcaha kadib waxay u yeereen inta badan saraakiisha ciidanka maamulka Waqooyi Bari ee ku sugan gudaha magaalada Laascaanood amaradana halkan ka bixiya. garaad Cabdullaahi, garaad Saleebaan, garaad Jaamac, garaad Cali iyo garaad Jaamac, garaad Ismaaciil ayaa la soo warinayaa inay hadda kulan ay albaabada u xiran yihiin ku leeyihiin magaalada Laascaanood. inta badan dabcan waxaa laga hadlayaa waa xaaladda amni, khilaaf hajiro oo u dhaxeeya dhinacyada dhulbahantaha laftirkooda. laakiin hadda xogaha la helayo waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinac walba ah si weyn looga dareemayo magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada. toddobaadyadii la soo dhaafayna waxaa la sheegay in beesha faca weyn ee dhulbahantuhu ay garowsadeen in xilligan la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo la sheegay in ay xaaladda gelin karto meel kale oo aan waxba laga qaban karin. odayaasha dhaqanka hadda shiraya dabcan saraakiisha ay la hadlayaan kulli waxay kala hadlayaan waa amnigii, dardirgelinta howlaha amniga, qabashada magaalada Ceergaabo oo ah shaqo weyn oo sugaysa odayaasha dhaqanka iyo ciidamada, iyo in sidaas si lamid ah la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagula dagaalamayo ciidanka Somaliland haddii ay isku dayaan in ay ka soo gudbaan khadka cas ee ku yaala aaga magaalada Oog iyo aaga magaalada Ceergaabo. khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin waa in si degdeg ah Somaliland ay laftirkooda u qaado
tallaabooyin dheeraad ah oo la doonayo in lagula dagaalamo cid walba oo lagu tuhmo in ay ku lug leedahay ficilada foolfoosha xun ee ka dhacaya gudaha magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada. Isku haynta ugu weyn hadda waa Ceergaabo, waxaana la filan karaa in Ceergaabo ay noqoto magaalo xudun ah oo u dhaxaysa colaada ama ka dhaxaysa colaada beelaha reesha Isxaaq iyo sidoo kale dhulbahante oo isku haya gacan ku haynta magaaladaasi. gudaha saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin.